بسم الله الرحمن الرحيم كسر وهذا برشاد مادة حسابتا فصل كلامي تبنات maantana waxaan qaadanaynaa chapter koowaad ee maadada xisaabta fasalka 12aad ee lagu magacaabo analytic trigonometry. Analytic trigonometry casharkiisa koowaad waxaa ku xusan sum and difference identities for cosine. Example koowaadna waxaa ku xusan find the exact value of cos 15 saan usoo saarno ma cos 15 waxa lagu heli karo waxaan raadinaynaa waxay tahay laba tiro oo haddii la isku daro keeni karto 45 degree haddii la kala jarona keeni karto 15 degree markaan raadinayno labadaas tiro waa inaan ka raadinaa special angleska labadaas tiro waxay noqonaysaa 45 laga jaray 30 waxa ii soo baxay waa 15 labada tiro ee keeni karto haddii la kala jaro cos 15 waa 45 laga jaray 30 waxaan leenahay cos 15 degree wuxuu la mid yahay cos 45 laga jaray 45 degree laga jaray 30 degree cosku waxa uu leeyahay laba qaacido ama laba formulo ayuu leeyahay labada formulo oo cosku leeyahay waxay tahay mid koowaad qaacidada koowaad waa cos a plus b cos a plus b wuxuu la mid yahay cos a oo lagu dhuftay cos p oo laga jaray sin a oo lagu dhuftay sin b qaacidada labaad uu leeyahay coskan waxay tahay cos a minus b waxaa lagu helaa iyadana cos a oo lagu dhuftay cos b oo lagu daray sin a oo lagu dhuftay sin b maadaama angalka aan haysano oo ku yimid two angles oo la kala jaray waxaan isticmaalaynaa a minus b waxaan isticmaalaynaa formulaha labaad oo ah a minus b waxaan leenahay cos 45 degree oo laga jaray 30 degree waxa uu la mid yahay meel kastoo aan ku arko a waxaan ku bedelanayaa 45 p na waxaan ku bedelanayaa 30 waxay noqonaysaa marka cos a da waxaan ku bedelanayaa 45 degree lagu dhuftay cos b dana waxaan ku bedelanayaa 30 degree oo laga jaray sin a da waxaan ku bedelanayaa booskeeda ii saarna 45 degree oo lagu dhuftay sin bidana waxaan ku bedelanayaa 30 degree saan usoo helno qiimaha cos 45 degree cos 30 degree and sin 45 degree iyo sin 30 degree waxaan dib ugu laabanaynaa ama ka raadinaynaa qiimaha ay leeyihiin trigonometry table-ka cos 45 qiimihiisa waxa uu la mid yahay radical 2 oo loo qaybiyo 2 oo lagu dhuftay cos 30 qiimihiisa waxa uu la mid yahay radical 3 oo loo qaybiyay 2 plus sin 45 qiimihiisa asana wuxuu la mid yahay radical 2 oo loo qaybiyo 2 oo lagu dhuftay sin 45 qiimihiisana waxa uu la mid yahay 1/2 equal waxay la mid tahay waxaan isku dhufanaynaa tirada ku jirta gudaha radicalka 2 times 3 waxaa soo baxaya 6 marka haddii la isku dhufto labadan tiro waxay noqonaysaa radical 6 oo loo qaybay 2 times 2 waxaa ka soo baxaya 4 plus 2 radical lagu dhuftay 1 waxaa soo baxaya radical 2 oo loo qaybay 2 times 2 waxaa ka soo baxaya 4 equal waxay la mid tahay lambarkan gudaha ku jiro haddii ay kala duwan yihiin la iskuma dari karo marka waxaan sameynaynaa labadan tiro maadaama ay kala duwan yihiin sidooda u soo qaado hooseeyana xabad ka soo qaado waxaan leeyahay radical 6 oo lagu daray radical
2 oo loo qaybiyey labadan hoose xabad ka soo qaado waa 4 halkaas ayaan kusoo koobayaa example koowaad ee maadada xisaabta fasalka 12aad chapterkiisa koowaad ee ahaa analytic trigonometry insha allah waxaan qaadan doonaa next video example-ka labaad haddii aad ku cusubtahay channelka saar subscribe si ay u gaaraan casharadani ardayda kale ee Soomaaliyeed una baahan inay ka faa'iidaystaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.